السلام عليكم. waxaad nagala socotaa kanaalkan YouTube ee Shukri Sunshine Linguistic Institute oo maalin Jimcaha 16 bishii May 2025 kuna beegan 18 bishii Dhulqacda sanada 1446 Hijriga waxa ku guda jirnaa barashada luqadda English ha hilmaamin inaan ku jirno 90 days challenge oo ku doonayno inaan ugu baxno qaybta beginners iyo qaybta intermediate ku soo dhawaada casharkeena maanta. Casharka maanta wuxuu ku saabsan yahay PH words. حرفها PH ay ku jiraan ayuu ku saabsan yahay. PH xaraf ay ku jiraan oo Ingiriisi hadaa aragtid F baa loo akhriyaa. xarfaha PH hadaa ku aragtid F loo akhrinayo way xarfahan aad inta ku joogtid. jumlooyinkana waxaa la adeegsanayaa xarfahani qabaan PH. haddaba aan ku bilaabana prophet phone elephant photo pharmacy physical face nephew physics. macnahooda aan ku raaciyo. prophet waa nabi. prophet Muhammad, peace be upon him, nabi Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee. phone waa telephone. my phone is an iPhone. My phone is Samsung. Telephonekayga waa Samsung. Telephonekayga waa iPhone. Okay. Elephant waa maroodi. Photo waa sawir. Photo. Who took this photo? yaa qaaday sawirkan. Pharmacy waxa waaye meesha daawooyinka lagu gado. Pharmacy. Physical waa muuqaal markaan ku leeyahay yani waxa waaye wax la arki karo way. hadda daan ku dhaha do a physical exercise hadaan ku dhaha waxa waaye adigoo jimicsi iyo wixii suubinayo waa in lagu arko way. yani waa wax indhaha laga qaadayo. face waxaa la dhahaa dhanka kale. yani face camal waxa waaye barka kale camal ay noqoni. like face haddaa fiirisid bishi marka ugu horeysa saanay ku bilaabani, haddina saana ugu sii xigsanaysa waa yara weynaani, saana ugu sii xigsanaysa marka dambe half ay noqonaysaa. so those are faces of the moon. so ma garan. so face dalna marka waxa waaye sida akoloto way, dhinacyaha akoloto way. nephew waa ilma habreed. physics waa cashar lagu qaatay luqada oo ka kala marka cunug u gaaro secondary u gaaro la qaataa la yiraahdaa oo maarta xisaabaad iyo waxaan la xiriir dadka engineer ay baran raba ayaa badana qaato. okay, read these sentences. akhri jumlooyinkani. we learn physics in high school. secondary waxaan ku baranaa luqadda physics. waxaan ku baranaa cashar lagu magacaabo physics. okay, we learn physics in high school. physics waxaa lagu bartaa high school iyo secondary waa isku mid. the elephant has a long trunk. maroodiga wuxuu qabaa dhuun dhirir badan. maroodiga wuxuu qabaa gacan dhirir badan ama dhuun dhirir badan. okay, the pharmacy is a shop where medicine is sold. pharmacy haddaa maqashid waxaa lagu magacaabaa farmacy haddaa la dhaho ama pharmacy waxa waaye meesha lagu gado daawooyinka. okay, a phrase is a small group of words. phrase haddaa maqashid waxa waa group yani jumlo yar oo is haysto waay. so like hadda daan ku dhaha Prophet Muhammad, peace be upon him, intaas aan kusoo qaabeen ku dhigi waxaa la dhahaa phrase. so phrase is a small group of words. xarfo yar oo laysu keena ayaa la dhahaa phrase. cashirkeena maanta intaan ayuu ku egay. haddaas kanaalka ku cusub tahay subscribe saar. haddaas hore noolu sii joogtay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. muuqaalka like si. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.